kilarka ismaamulka Soomaalida shimbir aan haybtiisa wali la garan inuu halkaasi dad waxyeello ugu geystay badan qaar ka midana ay u dhinteenba dhibaatada ugu geystay maanta waxaan la joognaa haddaba Axmed Ibraahim Cawaale oo ah khabiir arrimaha deegaanka ka shaqeeya kana faallooda bal hadda Axmed waxaan weydiin doonaa bahalka iyo la socday dabcan bal bahalkan Axmed maxaad warbixin ka haysaa bismillahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantahay cali runtii horta marka ugu horeysa arrintan kolley degdega ay ma garanaysaa ku soo korodhay kililka ismaamulka Soomaaliyeed ee ku saabsan haadkan mar lagu sheegayo waa gorgorba la oranayaa mar waa baqayo inkastoo de family-ga ay gorgorka ka mid tahay baqayadu qudheedu ka mid tahay iyo waxyeelada uu geystay aad looga hadlayay isla markaasna waxyeeladaasi ay inta aynu maqlayno imika ay ku koobantay areadaas runtii horta marka ugu horeysa waa ka tacsiinaya dadka ay ka soo gaadhay dhibaatadaasi ka soo gaadhay iyo geeridaasi ka soo gaadhay ilaahay cawad khayr leh hasiya baan leeyahay talabaad waxa weeye horta aad iyo aad ba arrintan looga hadlayay baryahan oo dhan baraha bulshada iyo meel walba laga sheekeynayay haddaynu niraahno horta waxa weeye inaynu ka bilowno shimbirkani muxuu yahay ama haadkani muxuu yahay internetka iyo maxaan ku idhaahdaa baraha bulshada waxa wareegaya sawir aan filayo sawirkaas in lagala soo degay internetka oo aan filayo ma garanaysaa inaanu ahayn waayo marar badan warbixinada ka imanaya goobaha waxay sheegayaan sawirro kala duwan ayaa maaragtay soo baxaya mar maxaan ku idhaahdaa xuur baa la soo sawirayay mar shimbiro kale la soo sawirayay marka horta halkaynu ka bilaabi karnaa waxa weeye shimbirkani ama haadkani muxuu yahay taasna waxaynu ku ogaan karnaa oo keliya waxa weeye horta waa in de horta la hayaa haadkii oo markaa مثلا la aqoonsada inaynu aqoonsano weeye مثلا haadkani dabeecadahan cusub la yimi ma waxa weeye ma mid xero dhalada oo dalkeena joogi jiray oo sida ay sheegayaan oo dadka qaarimka de xalayto kale aan dhageysanayay baqay ay ku sheegayeen baqayaduna waa waxdeeda waynu ognahay waa dhulkeena way joogtaa dadka qaarna waxay ku oranayaan maanu haadkan weligeeyo arag marka waxa loo baahay marka ugu horeysa in laga bilaabo horta shimbirkan in la ogaado bal horta xaggu ka soo jeediyo wuxuu yahay way waa la garan karaa shimbiraha adduunka oo dhan way diiwaan gashan yihiin imika halkan waxaan ku hayaa buugga la yiraahdo Birds of East Africa baa la yiraahdo waa shimbiraha bariga Afrika oo ay ku jirto marka ay haadi ku jirto marka gorgoradii مثلا maxaan ku idhaahdaa iyo haadi kala duwaneed ee bariga Afrika iyo shimbirihii oo dhan baa ku diiwaan gashan waxa weeye hadii uu yahay haadkani mid dhulka Soomaalida ku nool iyo haduu yahay mid regional gobolka ku nool waa la ogaan karaa waxa weeye shimbiraha adduunka waxa weeye waa la wada yaqaanaa waa diiwaan gashan yihiin arrintaas inaynu ogaanaa waxay inoo tahay horta muftaax bay inoo tahay problemka inaynu wax ka ogaan karno meelaha lagu ogaan karna waxa weeye imka baqtigiisoo kale waxay in مثلا loo qaado مثلا dhakhaatiirta مثلا jigjigo kale la geeyo ama adsabo kale la geeyo oo de marka horta la aqoonsado marka la aqoonsado waxa la ogaan karaa shimbirkani ma shimbir xero dhaladaba mise waa shimbir soo doolay hadduu soo doolay waxa la ogaan karaa shimbirkani areaska uu ku nool yahay shimbiraha mid walba waxa weeye maapka halku kaga yaala ama halku ku badan yahay ayaa ku yaala shimbir kasto adduunkuna way jiraan shimbiro safra oo isaga socda qaarada isaga socda way jiraan oo marka maartay cimiladu maartay kulba markay isbedesho marka arrintaasi muhiim bay noo tahay inaynu ogaano marka halkaas aynu ka bilaabi lahayn marka hore laakiin sida waynu ogsoonahay waxa weeye wax cusub maaha haadu inay ma garanaysaa مثلا ay dadka weeraraan wax cusub maaha taariikh ahaan ama taariikhdii hore aan مثلا de taariikho aad u fog waxa la sheegaa sida ma garanaysaa lagu arko degal baaristo kale lagu arko meelo badan oo Afrika iyo meelo kale adduunka inay jiri jireen shimbiro dadka cuna ama haad shimbiraha dadka cuna inay jiri jireen laakiin se wax cusubna maaha bariyahan dambe meelo badan oo Yuruba iyo meelo badan oo مثلا xitaa China 2014 waxa ka dhacday ma garanaysaa maarta waxalkani moogtay waxa in la derso imika waxaynu ka soo qaadaynaa مثلا waa runo dadka waa dhibanayaal
waaba laga yaabaa bahalkan inuu dhibana yahay waxa weeye imika waxa weeye colaad cadaawada loo qaaday way jirtaa waxa weeye waa cadow weeye oo de waxa weeye dhibaato keenay laakiinse culimada darsta ma garanaysa waxaan dabeecadaha iyo dhaqanada مثلا behavioral science waxa la yiraahdo waxa la ogaan karaa maxaa sababay in xayawaankani ma garanaysa mar kaliya uu isu bedelo inuu dadqaad noqdo horta waxa bariyahan soo kordhaya waxaan la yiraahdo human animal conflict oo waxa weeye maaragtay dagaalka ama isqabsiga ama waxa weeye ismaandaafyada ka dhaca dadka iyo xoolaha ama xayawaanka ayaa sii badanaya oo mesela waxaynu ogsoonahay in kalmada daayeerka oo kale daayeerku wuxuu leeyahay waxa weeye laba ma garanaysa dabeecadood buu leeyahay qaraabkana wuu cunaa waana hilib cune waxayawaan labadiiba marka bariyahan dambe waxa la arkay xitaa daayeerkii oo caruur yareer cunaya ayaa la arkayay ma ogtahay marka xiriir baa ka dhaxeeya maxaan ku idhaahdaa مثلا mar allaaliya marka ay cimilada ama مثلا maaragtay dabeecadda ama deegaanka wax iska bedelaan iyo dabeecadaha waayo waxa weeye wax bog leh oo beer qoyan leh inuu cunu doonaya inuu noolaado doonaya waxa weeye marka مثلا uu yaraado wixii uu cuni jiray ay yaraadaan waxay ku khasbi kartaa inuu la yimaado ma garanaysaa qaab cusub oo u noolaado ma garan karno ma garanaysaa مثلا xayawaankan waxa ku kalifay laakiin se waxaynu garan karnaa aan oran karnaa مثلا waxay noqon kartaa oo kale marka China oo kale waxa ka dhacday 2004 sheegay مثلا gorgorba sidaas oo kale waxa weeye niman Chinese ayaa waxay ay qaateen ugxantiisii iyo maxaan ku raahdaa shimbirihii yaryar uu dhalay haddii yaryar uu dhalay iyagoo u adeegsanayay dawo dhaqameed u adeegsanayay dabeeto bahalkii markii ay arintaasi dhacday wuxuu argoosi buu bilaabay waxa weeye dadkii meesha ka dhawaayay oo dhan waxa weeye dagaal buu ku qaaday waxa weeye dad waxyeelay way jireen dad uu dhibaato weyn u geeyay way jireen marka ma garan karno arintan oo kale inay sidaas oo kale tahay waxaynu arkaynaa imika dhulkeena deegaanada oo kale imika dhuxulaysigu aad buu uga socdaa waxa weeye had iyo jeeraanana dhirta la abaaraa مثلا maxaa magaraysa la gooya waa geedba geedku ka weyn yahay geedna geedku ka dheer yahay waxa dhici karta مثلا inuu ugxaantiisii ama maxaa laga yaabaa maxaa caruurtiisii in lagu gubo geedkaas oo kale laga yaabaa oo dhici karto inay argoosiba tahay waxa dhici karta inay magaranaysa مثلا sida aynu soo sheegno kale ay noqon karto arin waayo meelo badan waxa ka jira imika waxa weeye ama dagaal ka jira ama macluul baa ka jira dad baa dhimanaya marka waxa laga yaabaa inuu hilibkii inuu giga laga yaabaa uu cuna baa laga yaabaa dabeedna uu markaas uu dabeedna dabeecadihii uu yeesho dad qalnimada dad cunnimada uu yeesho waxa laga yaabaa inay dhadhan u samayso dhadhan ka wanaagsan dhadhankii markuu dee ma garanaysaa qof neysha uu qaadanayay ama uu neef qaadanayay inuu hilib dad cunaa inuu dhadhan ka wanaagsan u sameeyaa laga yaabaa oo مثلا halka marka waxa weey arin adigu guud ahaan u baahan in la darso behaviorka marka ugu horeysa in la ogaado horta bahalkani maxru dhalad ba mise meel kale inooga yimi dhaqamo badan buu leeyahay waxa weeye مثلا imka waxaynu sheegay waxa la sheegay imka caruurta oo kale مثلا marka caruurtii u qaato oo kale qaarkood markii laga ridaayay inuu soo tuuray waaba laga yaabaa inaan dhaqamadu leeyahay waxa weeye مثلا markuu qaato neefko kala qaato ama inta badan waxyaabaha dhulkeena oo kala qaadan jiray waxa kamid ah diinko kale diinku waa qolof adag ah marka diinkii markuu qaato dhulka ka rujiyo hawada sare markuu la marayo ayuu soo deynaya si uu lafta si ma garanaysaa maaragtay dahaarka adag oo burburo dabeedna uu cuno waa laga yaabaa caruurtan uu de xagga sare ka soo tuuray inuu isleeyahay maskaxdu digaaga ahaan noqoto ama ma garanaysaa marka waa behavior uu leeyahay marka runtii markaynu ka hadlayno ma garanaysaa xayawaanka iyo dadka dee kolay dhibaatooyinkan soo kordhaya ee ma garanaysaa ka dhex jira horta bariyahan horta haada noocaas oo kale way sii yaraanaysay waliba haada hilib cunku way sii yaraanaysay oo marka la barbar dhigo shimbiraha maxaan ku idhahdaa qaraabka iyo ma garanaysaa midhaha cuna sababta ugu weynina waxa weeye maaragtay waxa weeye waa xoolahan la sumaynayo xoolihii marka la sumaynayo ama shimbirkaasi toos buu markaa u dhimanaya
ama waxa weeye suntaasi waxa weeye haddii aanay markaa dilaynin waxay ku biiraysaa jirkiisii bay ku biiraysaa dabeedna hadhowto waxay saameyn ku yeelanaysaa maxaan ku idhahdaa tarantiisii bay saameyn ku yeelanaysaa marka waynu aragno imka ugaadhi way sii yaraatay aad iyo aad bay u yaraatay imka xunshadii oo kale meelaad ku arkaysaa ma jirto marka kolley waxaan u arkaa arrintan haddaan soo ururiyo horta marka ugu horeysa waa arrin deegaan maaragtay survival waxa way qaab nololeedkii uu xayawaankan u noolaa waxaa laga yaabaa in ma garanaysaa wax badan iska bedeleen wixii ku noolaa wax badan iska bedeleen ama ay yaraadeen ama waxaa laga yaabaa in ma garanaysaa inuu dhadhansaday hilibka dadka oo markaa laga yaabo markaa uu uga dhadhan wanaagsanaaday hilibkii xoolaha ayaa laga yaabaa markaa sidaa uu ku noqday inuu dad qaad ku noqday wahagaag axmed ka waran imka waxa jirta waxa laga qaylinayaa cimiladii oo kululaatay taasi tolo wax saameyn ayadu ku yeelan kartaa cimiladu waa halkeeda laakiinse waxyaabaha ugu badan ee saameynta ku yeelanaya waxa weeye ma garanaysaa maalan xayawaankani dee wuxuu ku noolaa waa hilib cun weeye inta badan waxa weeye maalan xayawaanka libaaxii iyo shabeelkii iyo waxyawaanka waaweyn ee ma garanaysaa maalan ugaadho kale iyo geeloo kale iyo xoolaha cuna kala cun jiray marka ku xigtaa waxa iman jiray waraabayaashii marka ka xigtay yeydii ba iman jirtay marka ugu dambeeya haadii ba iman jirtay haadu waxa weeye doorkay ku lahaayeen waxa weeye inay dhulka nadiifiyaan oo maalan ay feentaan ay nadiifiyaan bay ahayd waxa weeye kaalin aad u muhiimay ku jireen haadina waa kuwan meeshii ka sabaxaya markaynu eegno suntan iyo arrimahan markaynu eegno waa runo way ka qayb qaadanaysaa waxaan la yidhaahdo in deegaanka wax iska bedelaa waxaa ka mida maalan ma maqasho waxa la yidhaha haad geed waaye de waxa weeye dhulka buuraha ah maalan waxa weeye maalan baqayadoo kale ama shimbiro badani ugxantooda waxay dhigtaan dhagxantaasay dhigtaan laakiinse dhulka hawdkoo kale waxay dhirtay saaraan moogtay marka geedkii weynba marka la gooyo ee la dhuxulaysto waxa weeye haad geed waaye buu noqonayaa marka waxay noqonaysaa markaa in ay saameyn ku yeelato waayo wuxuu geedkan u saarayaa in the predatorskan kale ama xayawaankan kale cunaya ma garanaysaa beedkiisa inuu ka fogeeyo marka saameyn bay ku yeelanaysaa waxay ku yeelanaysaa maxaan ku idhaahdaa ma garanaysaa tarantiisii waxay ku yeelanaysaa cimiladu waxay ku yeelatay iyo abaaruhu waxay ku yeelatay waxyaabihii ku noolaa oo yaraaday taasoo ka dhigi karta inay markaa ay u leexdaan dee qaab cusub ay u noolaadaan oo dee bini aadamku dee maalan markaasoo kale uu dee nugul yahay waa nugul yahay waliba carruurtu aad iyo aad bay u nugushahay oo markaa ay saa ku cunaan ugu dambeyn dadku hadallo badan bay isla dhex marayaan badan mid la dilay baa jiray manay suurtoobin in la baadho oo xog saxa laga soo saaro saad xustay adoo fursadan ka faa'iideysanay waxaad fariin dadka u diraysaa maadaama waxyaabo kala duwan la isla dhex marayo iska propaganda badan waxa weeye horta waxa weeye waa mas'uuliyadda waxa weeye ma garanaysaa dee kililka iyo even haddii ay u soo talowdo dhinacayna Soomaaliland ay u soo talowdo waa mas'uuliyad saaran xilsideenadeena ama xilwadeenadeena saaran inay ma garanaysaa xayawaankii markaas haddii la soo dilay ama la soo qabtay la keeno dabeedna la istidhigareeyo oo markaa horta marka ugu horeysa dee dad khubaro oo markaa ka warrami kara bahalkani ma yahay shimbiraheeni ma yahay mid meel kale ka yimi hadduu meel kale ka yimi waxa markaa waa la ogaan karaa markaas in maxaa la yidhaahdaa dee haybtiisii iyo dhaqanadiisii oo dhan baa la ogaan karaa markaa waxaan u baahanay arrintan oo kale waa arrin really hadday sidan kusii socoto nin oday oo ilmo caruura uu ka cunay waxaan maqlaayay waa miduun ma ahayn waa tiro badnaayeen dee horta dadkuna inay foojignaan muujiyaan isla markaasna ay dee iskaashi la sameeyaan maalan si wanaagsan ay uga howlgalaan ma garanaysaa mas-uuliyiinta ama ma garanaysaa dee meeshaa joogaa kolba meeshii joogaa oo se meesha ugu dhoweeya ma garanaysaa maalan dee talaagad baa lagu ridi karaa dabeedna waxa weeye si wanaagsan loo darso dabeedna saa loo